wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile oo ka mid yahay taliyaha guud ee ciidanka ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland iyo ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland oo hawl shaqo u jooga waddanka Djibouti ayaa soo booqday safaaradda Somaliland ay ku leedahay waddanka Djibouti markii ay wafdiga uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland ay soo gaareen safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti ayaa waxa ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed waxayna wafdiga uu hogaaminayo Maxamed Cali Bile agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland soo booqdeen qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti iyagoo oo soo booqday xafiisyada kala duwan iyo shaqaalaha ka howlgala safaaradda Somaliland ee waddanka Djibouti. runtii maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa safaaradda Jamhuuriyadda Somaliland ee ku leedahay Jamhuuriyadda Djibouti agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland taliyaha ciidanka madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland taliyaha ku-xigeenka iyo wafdiga kale runtii la socda waxaan leenahay soo dhawaada Cabdiraxmaan isna tiim ka tirsan Cabdi oo isna maxaa haydo qaybta madaxtooyada ciidamada isna xisaabsan waxaan leenahay ku soo dhawaada Somaliland waa safaaradeeni waxa timaadeen dalkeeni hooye ee labaad waxaan leenahay welcome waad arkaysaan safaaradeeni iyo shaqaalihi maanta jooga runtii hawsha maalmoodkoodii ku jira marka waxaan leenahay ku soo dhawaada wadana Cabdifataax safiirka Somaliland u fadhiyo dalka Djibouti aad baad u mahadsan tahay soo dhaweyntaada wanaagsan ayaan qirayaa inaad maaragtay tahay nin aad iyo aad u fududeeya u facilitate gareeya hawlaha Somaliland ay ka leedahay dalka Djibouti martiqaad dhowr maalmood aan ku nimid meesha oo aan ku joognaa insha Allah hawlaha iyaguna si fiican bay noogu socdaan waan ku faraxsanahayna in dadkaan la kulanay iyo intaan la kulmi doonaba sida wanaagsan ee maaragtay ay iyo qalbi furnaanta ay noogu soo dhaweeyay dalka adiga aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan iyo safaaradda quruxda badan leh iyo xafiiskaaga maaragtay iyo shaqaalihiisaba maaragtay maanta halkan nagu martigeliyay insha Allah hawlaha iyaguna waa noo socdaan waana noo sii socon doonaan muddo Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.